haddii aad aragto dad ku xamanaya ama ku hadal haya waad mahadsantihiin ku dhe sababta oo ah iyagu waxa ay hadiyad kaaga dhigeen wax ayna lacag goyn iyo waxa ugu weyn ee loo dadaalayo oo ah in ay waqti ku geliyeen si ay wax kaaga sheegaan iyo bixinta ajarkooda ay shaqaysteen marka maxaaba ku dhibaya ee aad culays u dareemi ta kale dad leh hebel ama heblaayo beri dhaweyd saasay ahaan jirtay ama sidaasuu ahaan jiray iminka waad isbedeshay waxa aad ogsoonaataa in aad tahay qof isbedel sameeyay oo jira ama wanaag ha noqdo ama nusqaane muhiimadu waa qanaacada nafsadaada iyo dhanka sanka eegista shay walba wax kasta oo kugu dhaca faa'iido iyo khasaaraba wuu leeyahay ee dhanka aad ka qaadanayso waa go'aan adiga ku yaala